Assalaamu calaykum. Waxaan sharaxaynaa maanta filim zombie oo cabsi badan oo lagu magacaabo Primal. Wuxuu ku bilaabanayaa ninkan calibaystaanka ah oo dhagaxan wax ku dhex sawiraya, laakiin qiso ayaa ka dambayso midaas oo ah noole dadka u dila xanaaq dartii kaasoo ku sugan gudaha derbigan. Kuwani waa baarayaal u soo socda tuuladan, waxay rabaan inay warbixin ka soo diyaariyaan xayawaankan weyn oo halkan jooga. Ugu dambeyn waxay soo gaareen goobtii cabsida badneyd. Howlgalkan ma noqon doona saaxiibadan kuwa ay ku sii midaysnaan doonaan, mase kuwa ayaa bilaabi doona inay cunaan kuwa kale. Si degan aan u wada galno filimka. Waxay fiirinayaan dhagaxa waxa ku sawiran, iyagoo dareemaya tilmaamooyin inay yihiin iyo digniino looga digayo gudaha inay galaan. waayo dadka meeshan hore u imaaday kamayna noqon iyagoo bad qabo. Kor ayay u soo baxayaan, waxay rabaan gudaha inay u galaan godka. Waxay wataan tooshash ee godcurka ku dhex ifsanayaan. Gabadhan magaceeda waa Sabnaa, saaxiibteeda la socota Simana la dhahaa. Waxay u sheegaysaa inay cabsi dareemayso, ayna u malaynayso meeshan inay dhib kala kulmi doonaan. Iyadana waxay u sheegaysaa inay isdejiso oo wax dhiba dhici doonin, shaqadana sidee tahay ay u qaban doonaan. Wax aan la arkayn ayaa qaniinaya Sabnaa. Way suuxday, asxaabtu way soo qaadeen banaanka ula soo ordeen. Iyadana way soo naaxday, laakiin wareer ay dareemaysaa iyo isbedel neefsashada dhankeeda. Kani waa Saciid, wuxuu soo jeedinayaa inay isaga laabtaan meeshan hadiiba Alisey kaws la isku bilaabay. Waxay hadda arkaan godad dhiig ka buuxaan, taasoo calaamad u ah halista goobtan. Markay ka soo baxayeen godka, waxay si fiican u soo fiiriyeen sawirka afaafka godka ku sawiran inuu bixinayo fariimo sheegaya dhibaatooyinka laga dhaxlo goobtan, laakiin si fiican umaynan fahmin weli. Galab ayaa la joogaa hadda. Gaarigay ka soo degsanayaan agabkooda jiifka. Samiir wuxuu siiyey daawo Sabnaa, iyadoo teendhooyinkooda ay sii daysteen. Labadan waa saaxiibo qaas ah. Waxay ka wada hadlayaan hadda sida uu noqon doono xiriirkooda safarkan kadib. Balse si kadis ah waxay ku heleen caag kajaclo ah oo jaban oo cayayaan ka buuxaan. Wayna la yaabeen arrintan. Saakay waxay sawirro iyo qoraallo ka diyaarinayaan derbigan waxa ku sawiran, iyagoo la yaaban calaamadan sidii jinniga u samaysan. Sabnaa ayaa ku fadhiisatay oo sawir haliga qaada dhehaysa dhagaxa dushiisa. Samiir ayaa u sheegaya kaftanley inay tahay, laakiin waqtigiisa aan la joogin. Halka Saciid iyo Simanna ay baaritaanka iyagoo sii wado cod argagax leh ay maqlayaan. Simanna dhaawac meel uga yimid aan la garanayn uu soo gaarayo. Cawada waxay u soo wada fadhiisteen casho heer sare ah kadib ugaar ay soo disheen maanta. Saara dabaal ayay iska aaday, iyadoo jawi ku qaadanaysa webiga dushiisa, laakiin biyaha dhexdooda ayaa laga soo raacay. Waxayna dareemaysaa xanuun. Asxaabta ayaa ku soo xoomay oo ka naxsan arrintan. Waxay geliyeen teendhada. Waxay bilowday afka inay dhiig ka soo dayso, miciyana ay u soo baxaan. Habeenku cabsidiisa ayuu la yimid. Hadeertaan waxay ka arrinsanayaan siday ka yeeli lahaayeen arrinta Saara, iyagoo aad uga walwalsan xaaladan musiibada ah ee ku soo korortay. Saciid ayaa soo jeedinaya inay isbitaal u qaadaan gabadha. Hadda way soo baxeen, hawdka ayay dhex marayaan, iyadoo gudcur ay tahay isaq dhexe. Waxay soo gaareen gaariga meeshii uu yaalay. Markii shirka ay geliyeen, Sabnaa waxay arkaysaa taayirka oo ay banjariyeen cayayaan. Way iska soo noqonayaan. Subax cusub ayay qoraxda la soo baxaysaa, jawi cusub. Siman ayaa ku baraarugaysa Saara oo korkooda taagan oo si naxdin leh u sii jeedo. Way u dhowaanaysaa iyadoo dhehaysa, Saara caafimaad ma jiraa? See wax u rabtaa? Garabka ayay ka taabay isleedahay. Weji cabsi leh ayaa soo eegay. Iyo zombie cunaya xayawaan yar. Indho kulul ayaa soo fiirinaya. Way naxaysaa. Zombiyada ayaa iska leexinaysa iyada. Waxay weeraraysaa asxaabta kale oo indhataag uu ka soo harayo, waagana ku dilaacay hadda. Waxay qabsatay oo qaniyana ku tashay Salmaan oo ahaa saaxiibkeeda ugu dhow. Kooxda waxay shiteen qoryo dab ah oo iskaga difaacayaan zombigan saaxiibkooda mar ahaan jiray. Wax walba kaamira ayaa duubayso, iyagoo eegaya qaabka ay qoftan zombie ku noqotay. Sabnaa ayaa soo jeedinaysa inay qasab tahay inay u dhameeyaan zombigan si baaritaankooda ay u sii wataan, xilli zombiga oo xayawaankiisa iska sii jeedanayo, iyadoo ku qaylinaysa buuraha dushooda. Dhanka kale, kooxda ayaa diyaarinaysa dabin ay ugu talagaleen inay ku qabtaan zombiga. Waxay sitaan qoryo dabab ah, waxayna ka wada hadlayaan farsamada ay ku dili doonaan iyo qaabka ay shabaqan uga badbaadi karin. Saciid ayaa uga digaya asxaabta gelitaanka qalad sabab u noqda inuu fashilmo qorshahooda. Way kala baxeen, iyagoo mid walba uu dhan aaday si ay dhinacyada oo dhan uga galaan zombiga oo ugu dambeyn dabinta ku dhaco. Waxay ka hor timid Siman oo isku dayaysa inay isdifaacdo. Dabkii ayay tuurtay iyadoo carartay, halka zombiyadana ay ku soo booday dhanka labadan. Ugu dambeyn xariggii ayay ku qabteen, laakiin si kadisa ayay ku baxsatay. Waxayna qaniintay Samiir, wuxuuna u dhintay dhaawacaan soo gaaray awgiis. Walwalku wuu ku sii bata kooxda. Caawana Sabnaa saaxiibkeeda ayay ka fikiraysaa oo maanta ay weysay, halka asxaabta kale
kalena ay soo jeedinayaan inay noqdaan. Laakiin Sabnaa argudasho ayaa gashay, mana doonaysa inay laabato. Juudaantiina dhinac ayay ka muuqanaysaa iyadoo cod cabsi leh ku qaylinayso, halka Saciid biyaha uu ku dhacay intii dagaalka uu socdo maanta ee ka soo raacday musiibadii zoombiga uu ku noqon lahaa. Isagoo xanuun dareemaya hadda, wuxuu bilaabay inuu dhulka galgashto. xilli Salmaan dareemaya kan inuu zombie noqonayo sidii Zara oo kale. Waxay go'aansanayaan inay dilaan. Sabnaa ayaa midi qoorta ka saartay. Waxay ku khasban tahay inay qasho. Intaa kadib mindidii ayay tuurtay, wayna ilmeynaysaa xilli weerarada Juudaanta ay joogto noqdeen, iyagana ay isku dayayaan sidii ay ku badbaadi lahaayeen. Si kadisa Saciid ayaa zombie noqday. Iyagoo isku diyaarinaya inay meesha ka baxaan, ayuu ka soo kacayaa gaariga gadaashiisa, meeshaas oo ay geliyeen. Siman way naxday, ooyin ayay bilowday. Saciidii Sara ayaa hadda iswajahaya, iyagoo u soo gudbay marxaladda Juudaannimo. laakiin way isgarteen. Waxay dareemeen inay isku qolo noqdeen. Heshiisa dhexmaray, iyagoo hal dhinac ka soo jeestay si ay u ugaartaan inta hartay. Salmaan ayaa ku ordaya isagoo seeftiisa wato oo diyaar u ah inuu naftiisa u huro saaxiibadiisa. Wuxuu la dagaalamayaa zombiga, wuu dilayaa, isna wuu dhimanayaa dhaawac gaara awgiis. Halka Sabnaa ay iska caawinayso zombiyada, waxayna ku sii sikanaysaa iyadoo iska ilaalinaysa zombiyada dhanka godka. Halkan waxaa xaalad xun ku jira Siman. la tacaalaysa cayayaan kaga aruuray caloosheeda. Waxay isku dayaysaa inay iska soo saarto. Cayayaankan xayawaanka godka ayaa soo tufaayay, midi ayay iskaga soo saartay, laakiin xayawaankii ayaa soo muuqday oo cunaya. kii ugu horeysay ayaa muuqaalkiisa aragnaa. Xilli Sabnaa ay isku dayaysa inay ka baxsato, banaanka ayay isku soo tuurtay, laakiin waxay ku sugaysaa halkaas Juudaanta. Way soo weerartay, isla markiiba halganaa dhexmaray. Dagaal dheer oo labadooda ay isku murux siibteen kadib, Sabnaa ayaa ka adkaatay Juudaanta, dhulkay ku dhacday iyadoo madaxa uga fadhiisaysa dhagax weyn. Qisada baarista ayaa ku soo idlaatay guul. Warbixin fiican ayay soo heshay Sabnaa, laakiin wuxuu ku weysay saaxiibadeedii oo dhan.